جزاك الله خير شيخنا. سؤالين مثل ما ماشي يهلو سؤال شكوه رئيسه كوكو فرين كاكرين يا ورقة نقا اسبوع يقرن خلاص خليه يصور هذا وين والله شيء نفتش نوكر كوس ما يفرين بالمصور بس يقول لك هذا سؤال شكوه هذا عيالك فلزة هو كان الحمد لله دي هذا ما كلا قانه سفركم لبي بحسا خدمته كارك لقته iyo lacagta overdraftiga lagu sameeyo soo labada ma lacagtu markay kugu yartahay oo lacag deena qaadato fulizaada waatee inta kaarka aniga kuma dhaafo maxaas overdraftiga biya تكلم هل بيصير وكو جهازنا محيطه waa dayn lagu siiyey oo dulsaar wadata soo intaa maaha dayn baa lagu siiyey ama embeesa ha ku siiso ama banki ha ku siiyo ama qof shaksi ha ku siiyee lacag baan ku siiyey intaad soo celinaysana maalin walba dulsaar baa kugu socota waa interest clear interest ee ribo wey tan kalena maxay ahayd kuwa jahaazina maxay tahay taa kaarka ahey taa dhimala lacag laguma siinin ee service baa lagaa gaday ka qaalisan kii tooska ahaa adig keligaana maaha waxaa kaarka lagaa gada diilaaska kaarka boqolka safarika ma boqol bay ku siisaa kaararka markaan magaalada joogno dadka ka gata ee tuulooyinka jooga kaarka boqolka ama boqol bay gadaan kuwa banaanka ah tuulooyinka marka loo baxo kor may kuwa dukaamada ku haya kuwa banaanka tuulooyinka degmooyinka yaryarka waxbay saartaan waayo magaaladu ka keenay lacag buu geliyey wuu sii gadayaa boqolkii haduu boqol ku sii gado may taa waan gartay waxaan rabaa inaa idhaha taa ma banaana laakiin tan kaarhkii waa banaanta sababtoo lacag maadan gadan lacagta adaaba jeeb ku haysto lacag ma raadinaysa moogta service baad gadatay telefoonadu service qiimihiisu intaa yahay baad gadatay may inaad heli kartana waa qadiyad adigu suuqa laba arrimood haddaad gadatoo kala qaalisan waad samayn kartaa tan kaarhku lacag ma aha wax lagu siiyey service baa lagaa gaday ka qaalisan midka kale sida looga gaday mid ka jaban midka kale ninka dhiilaaga tiigtu ka jaban baa laga gaday kaar 193 laga gaday soo ma wax 100 u dhigma baa isaga 93 laga siiyey waa badeecad waxaa la gadanaya telecommunicationka biyaha korontada waxyaabahan ay timeka oo dhan waa service waxaa la gatay ee lacag lama qaadanin haddaad lacag qaadan lahayd ka badanna celin lahayd ribay noqon lahayd laakiin haddaad service gadanayso kala qaalisan way bannaanta su-aashaada kale tankaa qofkan ku gatay baa ku haysta adiga lacagna ma haysatid kaarka ma haysatid farqo way ku gaadaysaa waxay ku gaadaysaa dadka lacag la-aanta ee kaarka qabay ku gaadaysaa waxay kudhaysaa haddaad kaash ku gadato boqolkii shilin waa lagu siinaysa laakiin deen hadday ku siinayso 9 iyo 5 bay ku siinaysaa 5 bay shantay kaa reebanaysa waxay deynta iga gaday markay kaash deynta siinaysaa lacag bay saaratay markay kaar iga gadaysana dayn ka qaalisan tii kaashka hayd iga gaday saa darteed kaash iyo dayn kala qaalisan tan lifeka ayba bannaan tahay haddaad telefoonkan kaashii siinaysana waa kuu shilin haddaad dayn gadaysana waa 1200 way bannaan tahay waayo telefoon baan gatee lacag layma siinin
tanna service baan gatay ee lacag layma siinin oo markaan kaa gadanayo anigaaba laga yaabaa jeebka lacag inay iigu jirto laakiin ida meelahan igama dhowo meelaan kaar ka gato bannaanka jid baan taagnaya haywaya jeebkana 100,000 baa iigu jirta airtimekana waa iga dhammaaday soo maa lacag waan haystaa nin lacag raadinaya mihi laakiin service baan raadinayaa airtimekuna shirkadani airtime bay kiraysatay timeka lineka waxaa mara kooliska iyo codadkaa mara kii ay kiraysatay bay sakana iyo daqiiqada dadka ka iibinaysaa waxaa la gadaya marka waa service ee lacag la isa siinaya maaha haddii lacag lagu siinaya lacagna la saaranaya waa interest serviceka hadduu dayn iyo kaash kala qaalisan yahayna sida waxyaaba physicalka materialka ee service kaash iyo dayn kala qaalisan buu lamid yahay ka soco dhibale wixii kaashka laakiin intaydan kala tegin waa inaad mid ku heshiisaan ama kaash ama dayn ku inta kale waa gorgorta baad ku jirtaa xubaa dhib ma laha waa way bannaan tahay haddaad mid ku heshiisaan oodan wax idinkoon heshiini aadan kala tegin waa la ogol yahay dhib ma laha su-aasha labaad waxay leedahay qof aan ogahay xoolihiisa inay xaaraam yihiin diin ma ka qaadan kara tusaale qof corruption lacagta kusoo gashay ama soo xaday qofkaasi su-aaltaas darabasho wuxuu leeyahay qofkii asaga ahaa partnership ma la geli karaa oo ma wada shaqaysan karnaa بسم الله dadka xaaraanta ka shaqeysta ama xoolahoodu xaaraanta yihiin waa laba qaybood xaaraan la soo dhacay oo qof laga soo dhacay iyo la yaqaan lacagtan uu hebel ka soo xoogay meel buu ka soo xaday xoolahaasi iyaga laftoodii haddaad ogtahay inay yihiin qofkaa lagulama macaamili karo waayo maba leh xoole uu leeyahay maba geel buu soo dhacay loo buu soo dhacay ari buu soo dhacay baabuur buu soo boobay xooluu soo bililiqaystay xoolahan weli dadkii lahaabaa leh isagu maba wareejin karo milkigiisana ma soo gelinba taasi waa qaybtaas qaybta labaad hadday xoolahan ku soo galeen qaabaan sharcigu bannaynin qofkii bixiyeyna raalli ku ah ganacsi aan ansixin weeye qof baa laaluush loo soo siiyey weeye laaluushka qofkan la siiyey xoolahan qofkii lahaa oo raalli ka ah baa siiyey laakiin siduu ku siiyey si sharcigu ogol yahay maaha waxaa la yidhahdaa xoolaha kugu soo galay kasabka faasidka ah iyo xoolo aad dhacday oo milki kale ku jiro qofkii raalli ka ahayd waxaa ka mid a xoolo badan baa ka mid a xoolahan qaadka iyo tubaakada iyo waxyaabaha laga shaqeeyaa ka mida waxaa ka mida xoolahan sixirka iyo kitaabdayga iyo faalalowga laga shaqeeyaa ka mida waxaa ka mida xoolaha dhilooyinka naagta dhilada xoolahay qaadatee la siiyey baa ka mida ninkan lacagta ku siiyey isagoo raalli uu siiyey laakiin waxaan uu ka gatay wax halaala maaha beeca saxaya maaha hadday xoolahani qofkan heshiis khaldan ku soo galeen waa xoolo xaaraana laakiin kuwii hore way ka duwan yihiinoo hal wax bay kaga duwan yihiin halirtirab xoolaha in la celiyo oo qofkii uu maanta toobad keeno xoolihii maxaa lagu samayn ninbaa naag la heshiiyey caawur la tuntay xoolay ka qaadatay subixiiga rabta ina toobad keento ilaahay toobadu way furan tahay oo way toobad keeni kartaa ilahayna way u soo noqon kartaa laakiin xoolihii ma ninkii bay u celin oo ninkii lacagtii iyo tumashadii maa la isugu dari lacagtii iyo tumashadii maa la isugu dari halkaas waxaa imanaya dee khilaafka culimadu qolo tiraada waa loo celin iyo qolo tiraada may xoolaha uu isagoo raalli kuwa dembi iyo macsiya ku bixiyey kiina ma qaadan karo kiina loo celin maaye dad baahan iyo dan guud baa lagu bixin dad baahan oo ninkan xaaraantii iyo xoolihii baan kugu isugu daraynaa la dhihi maayo isagaa bixiyey isagoo raalli ku isdhaafiyey meel saxa kuma bixinin meel saxaan keenayna
xoolaha saas oo kaleeta ah ee cuquudda heshiisya faasidka ah beec ribo oon bannaanayn beec drugs laga ganacsanayo laaluushkiya ku yimaada hal arrin baad ileen culimo badan baa idinsoo mari doonta kuwo badan baad cod iyo internet iyo fataawo dhegaysan doontaan hal wax inaad fahantaan weeyo khilaafka aad arki doontaan bays u ah xaaraantu heshiiska saas waxyaabaha kugu soo galay xaaraannimadu ma xoolaha laftooda mise waa adiga qoortaada wax saaran oo qadar xaaraan ah ku dul saaran 1 milyan baad qaadatay ma xoolahan laftooda xaaraana 1 milyan mise milyan xaaraana dushaada saaran maxay ka dhigan tahay aniga xoolihii 1 milyan ahaa oo xafiiska aan kaga soo tagay haddaan raba inaan ka toobadkeenon 1 milyan oo gurigayga yaalla bixiyo kii xalaal mii noqon haddaan dhaho kiiba xaaraan ahaa laguu siiyey dee kani booska ma buuxin karo kii xaaraanta xafiisku yaalla haddii la yidhahda milyan xaaraana ku soo gasho milyan xaaraana lagaa rabaa inaad iska bixiso dee meeshii aan ka bixiyaba way iga bixi tusaale labaad account baa ii furan interest baa soo dhacday waan fiiriye xisaabta 100 kun oo interest ah ku jira ma 100kii kun halkaa inaan ka soo bixiyaa mise 100 kale oon hayo haddaan masaakiin iyo u niyoodoon isdhaafiyo taa anaa yeelan haddaan niraana lafteeda weeye xaaraanta waa halkaa inaad ka soo bixiso haddii la yidhaahda 100 xaaraana ku gashay 100 xaaraan inaad isdhaafisaa lagaa rabaana dib meeshii aan ka soo qaadan 100kii wataa isdhaafiyaba booskii way geli waxaan filaya inay ila fahanteen hadda ma lafteeda xaaraana mise ninkaa xaaraan inuu iska bixiya lagu leeyahay haddaan niraana lafteeda xaaraana kama shaah cabbi kartid gaari kuma raaci kartid dayn kagama qaadan kartid keliya waxaad ka qaadan kartaa dadkii xaaraantu ay ku baxaysee baahnaa haddaad tahay ama dantii guud aad uga qaadaysee lagu bixin lahaa baad taaban kartaa haddaan niraana qofka dimadiisa iyo qoortiisaa lagu leeyahay xoolahan iyaga cayntooda xaaraan ma ahana wixii macaamala ee sharci ah waad dhexmari karaa tusaalehaan gurigu kaa kiraystay lacagtii wuu kiradaadi kuu siiyey haddaan dhahna ninkan xaaraan baa lagu leeyahay ee xoolahan cayntooda ma aha kiradii hadduu kuu siiy adu wej xaqaad kaga qaadatay shidaal buu kaaga gatay raashin buu maqaayadii kaga cunay dukaankuu kaga adeegtay gaari buu ku raacay diyaarad tigid buu ku goostay isagana xaaraantiisi isagaa lagu leeyahay inuu iska bixiyo ay tahay aniguna si mucaamalo xalaala aan kaga qaatay marti baan ahaa wuu marti geliyey dee qofku martinimo xaq ugu leeyahay ani xaqaan lahaa baan qaatay xoolo kuwiisa ma qaadanin labadaa madhab weeye culimadu midkaan igala saxan baan idin dhihi karaa markaas ciddii leh xoolahan iyagiibaa xaaraana wuxuu ku leeyahay cuntadaad ka soo cuntay iska soo mantaji kiradaadii gurigan ugama qaadan kartid aniga waxaa ila saxan caynta xooluhu xaaraan ma aha isagay xaaraan ku tahayoo inuu isdhaafiya laga rabaa qof kastoo ay mucaamalo sharci oo xalaala dhex martana way bannaan tahay nabiga alai salaam yuhuud waxaa lagu magacaabay akaaluuna lisuxti xaaraan cun badan weeye hadiyadday siiyaan iyo gurigooda markay ku marti qaadaanna waa tegi jiray jizya laga qaadi jiray sanadkii lacaga madaxa qofka cumar waktigiisii baa dhallinyaro loo diray ka soo uruuriya qolaa waxay dhaheen anagu ma hayne xaafadahooda khamrigoodiiyo looma geli jirin waxay dhaheen war lacag ma haynee inta waa intaas haa tanagan khamrada qaatoo dee tanagana qiimihii u dhigmay qaata wiilal tanag la ordaya khamraha baa cumar isku soo tuuray war maxay ahayd nimankiiba hadda lacag waayo oo qiimaheediioo tana khamraha ka soo qaadna wuxuu war xagga qaadoo ku celiya iyagu ha gadaan annaga lacag nooga soo qaada lacag baan naqaanaa kambanigan taska ee khamriga ka shaqeeya hadduu intuu ku yimaado biyo iyo shidaal kaa iibsado ma ka gadi kartaa ha waad ka gadi kartaa lacagtana lacagtii khamriga laga soo gaday waaye isagay xaaraan ku tahaye aniga xalaal xoolaha uu wata mucaamil xalaalaana dhex maray isaguna xoola hebel leehow soo dhacay ma aha
marka kambaniyada sigaarka iyo tubaakada iyo khamriga iyo bankiga arrimada ka shaqaysta aniga dhul hadlo iga gato lacagtiisa faa'iidada interest buu ka sameeyaa ma diidaysaa maya aniga heshiis saxa mana dhex maray baa taalla saa darteed qolyaha kambaniga khamriga haddaad lacag ka sarrifato waa la ogolyahay ku sigaargad haddaad lacagtaadii ka sarrifato waa la ogolyahay guriga khamriga in lagu gado in lagaa kiraysta lama ogola laakiin ninka uu degan yahay xaafadii carruur baa u degan kambanigiisa khamriga ma aha guri waad ka karayn kartaa reer iyo carruur degaan khamri buu u shaqeeyaa dowlad buu u shaqeeyaa laaluushiya waxbuu u qaataa wixii waani kiradaydii isiiyey deynaan ku lahaa buu isiiyey way bannaanta adiga mucaamalo xaaraanaha la gelin laakiin calaa madhabka kale haddaad qaadato shilin intaa ma qaadan kartidi ninka xoolihiisu waa xaaraan ee deyntii guriga kirada ku lahaa waa isfuurfuusho bilahi towfiiq سؤال سألت وحوليها الشيخ قلت له الحين نقصي حكو صار صار إسكاشوينك صار الحين ما شيء كلام ما تقوى ساكو كريسن تكافل وحي شيء ثاني للإسلام شريعة كومبلاينس هي شريعة الأقوام هذا كذا من القفز معينة الحمد لله إسكاشوين ما إسكاشاتوين أنا وديت تكرار كذا ترجمة خلاص ما في كريس بيكون قرنز بقى horta wax guud idinma dhihi karo qori heblo waa xalaal iyo qori heblo waa xaaraan idinma dhihi karo laakiin say wax ku xalaal noqdaan iyo say wax ku xaaraan noqdaan baan idiin sheegi karaa waxaan saa idin leeyahay hataa bangiyadan islaamiga la yidhaahdo markaad tagto dhowr mushkiladood baa jira isku daro dhowr mushkiladood baa jira mushkiladda koowaadi waa dadka clientiska ah ee weliba soomaaliga waxma akhriyo waraaqaa loo keeni xaggeen saxiixaa buu dhihi maxaa qoran ma oga hadhow waa dambe baa waxaa la dhihi beentood wayaalo saa kulima heshiini buuri hoos adiga saxiixay maa oo beeska saa saxiixay mimaana akhriyeyba waxaan dhaqan u leenahay hadda boodhka waxbaa ku dhegan anoo taagan oo akhriyaya haddaad aragtaan akhrin maysaan maxaa ku qoran baad dhahaysaan qofka soomaaliga laba sifuu leeyahay wax ma akhriyo waqtina ma hayo haddana waa degdeg hadduu hataa intuu kuu keeno akhri ku dhaho maantuu kuu keeni berri buu jawaab rabaa 40-50 beej oo far yar yar ku qoran wey adigu intaasoo hawl iyo ballan baad leedahay hadduu kuu keenay saacad kadib ma akhriday buu ku dhihi oo haddaan markii u fadhiista xataa saacad iyo 2 iyo 3 toraa laguma akhrin karo qof wada degdegsan oon wax akhriyeynin hadduu doonana aaban luqadda ay ku qorid garanaynin baan heshiisya ku gallaa heshiiska qofka uu gelaya isagiiba uusan garanaynin aniga waa xalaal masala u dhihi karaa isagii waaba garanaynin dhowgaba waxa saxaaya mushkilad labaadna waa jirtaa waa xagga bangiyada ah mushkiladda laba qaybood bay ka kooban tahay shaqaalahan qaar ka mida muslimba ma aha oo waxaad ribiya waxaad ka caranaysa isaga umaba taallaba adaaba ribe iyo xaaraan iyo dembi iyo ay ku haysataaye nin gaaloon waxaaba rumaysnayn baa kuu qori isaga iyo kii muslimka ahaa wax kaloo wadaagaan baa jira waxaa la yidhi nin macallina arday qur-aan qabtay dugsi qur-aankana ilaa camo kaliyuu yaqiinay ardayga horreey markuu camo gaaruu reerkii shiriya wuxuu yidhi ardaydiisu weyla soo gaadhay iga qabsada ninkani 12 sano oo bankiga kale ka soo shaqayn jiray 2 usbuuc baa koos la siiyey iyo seminaar kadibna shaqadii baa loo dhiibay qor baa layidhi heshiiskii markuu 2 beej 3 beej qoro intii uu soo dhegaystay ee kooskii 2-3 usbuucaha way dhammaan wuxuu halkaa kaga qaban oo ku koonagti garayn kii uu yaqiinay buu qori waxaad arki wax bilow iyo dhexdiiya dhammaadku aan islahayn saa darteed heshiiskan la qorayo qofka qoraya ama damba kamale ama diin ahaan aqoon male wixii kale uu yaqiinay iyo jacbur buu qori marka dambena copy and paste way kuwa hore loo qoro wax badan ka khaldan yahay baa magacaaga inta lagu soo qoran baa lagu soo diray anna ma akhriyaysa saa darteed heshiisyadan haddii heshiisya saas oo kaleeto haddaan idho hebel heshiiskiisu waa xalaal ama waa xaaraan dee waa mushkilad anna inaan idin lugooyana ma rabo idin dambaajiye annana dambaaba ma rabo heshiiskaad galaysaan waxaan dhihi lahaa waxaa idiin fiican oo xalaal ku noqon karaa horta waqti siiya haddaad aad u aqrin karta akhri
haddaadan aqrin karin dad garanaya oo aqrin kara la raadso. dad badan baa magaalada jooga oo culimo akhriya, kuwa howlahaas ka shaqeeyaa jira, fiigana iska bixi. ilaan looyarkaba fiigana waad siinaysaa, dakhtarkana fiiga waad siisaa, injineeradana fiiga waad siisaa, kan kuu aqrinaya maxaad fiigiisa u bixin laada? ugee ha lagaa akriyo. horta akhriskana waxaa bays u ah, adigu maxaad rabtaad qolada kula heshiinaysaa si aan u eego waxan lagu qoray wax saxan inuu yahay. waxaa laga heshiiskan si ahaan inuu saxan yahay, laakiin adigu kaad rabteed gelaysay uusan ahayn, oo lagu dhaw war kan waxaad kaad adigu rabtay kan ismale, kan qofka waxaa rabaa gala ku khaladaa lagu soo daabacay. dadkaa raadiya, waqti siiya, iska akhriya, la kaashada dadkaas. waxayna ku xidhan tahay shirkad magaceed iyo banki kuma xidhna. heshiiskaad la gelaysaa ma saxan yahay bay ku xidhan tahay. khayr kasta hadday leeyihiin oo si khaldan la gasho waa khaldan yahay waxaas. bankigu xataa islaami hadduusan ahayn oo heshiis sharci ahaan saxan la gasho wuu bannaan yahay. marka heshiiskaad gashay ma saxan yahay mise ma saxna weeye masalada. saa yeela khayr allah idin siiyanaa. laba su-aalood waan soo gabagabeynaa. su-aashan waxay leedahay auction alaab ma kasoo iibsan karaa ama asag ma bannaan tahay in auction alaab kasoo iibsan? cidda ogsanaysana laakiin muna sheegin. muu sheegin banayn. hadday yihiin bangiyada iyo dadka deymaha laga qaatay waa la gadan karaa. dadkan wax laga xaraashayo iyagaa heshiis iyo axdi galay. hadduu xoolo qaatay ballanta haddaan fulin waayo ha la xaraasho. heshiiskay waxaan ku qaateen buu ku jiray. sharciguna wax baabur rahni la yidhaahdaa jira. rahantu waa damaanada la dhigo markaad xoolo dadka qaado, oo haddii lagaa waayo loo gado. masaladan alaabta la dhigaya collateralka aad tirahdaan damaanada loo dhigayaay waa tii sharcigee rahanka loo yaqiinay wey. inay xoolahanan ka ahayn, haddaad wixii iska bixisana adaa leh, haddaad iska bixin weydana waan gadi. xoolahigii xaqaygii baan ka raadsan, wax sharcigu ogol yahay wey. adigoo raalli ku ah sidaa haddaad aqbashay, xoolihii inaad iska bixin weyday, dee dadka inay gadaan xaq bay u leeyihiin. ciddii gadanaysana waa u bannaanta. haddii xoolo dad laga soo xoogay ay yihiin laga soo dhacay, dee waxay ku xiran tahay dadkii laga soo dhacay ma sharci xaq baa lagaga soo dhacay mise maya. xoolahaasi waxay aada ugu badan tahay xoolaha dekadaha xoolaha ku daaha, ama sharcigii lagu keenay iyo waraaqaha waxsi ka noqday, ama waraaqihii baa ka soo daahay oo meeshiisa igu jiray bondemireejkii ku batay uu noqdayba isagii wax ka badan, ama dowlad baa sharciyo soo rogtay oo wixii markii horeba la ogolaa wax ka duwan buu keenay, waxbuu isyaroosgelinayay, waxbaa ku qarxay. waxyaabaha dekadaha ah xoolaha dadkii laha iskaga tagaan, ciddii heshaa yeelata. xoolahaga nool hadday abaare intay dhacaan, nabiga waxaa ka soo xasuus salaam, hadday abaare intay dhacaan neefkii dadkii xoolihii ay waayaan bannaan kaga tagaan, qofkii qaate ee calfiye ee nooleeyaa iska leh. xoolihii noolaabay ahayd markay abaaruhu dhacaan ama colaaduhu dhacaan. waxaa la mid a haddii meesha magaalada intuu wax yimaado qofkii alaabtii lahaa intuu soo qaado bannaanka iskaga tuuro, qofkii qaataa iska leh, isagoo wuu nacay. hadduu qofkan xoolihii isaga tegey intay wax ka khaldameen tan dhibkeedaaba ka badanay isaga tegay waa la xaraashi karaa. haddii bakhaar loo dhigay oo deymo lagu yeeshay oo deymihuu iska bixin waayeyna nin xoolo lagu lahaayo xoolo laga hayo waa la xaraashi karaa. haddii si kale dadka loo dhacay, dee xoolo dad laga dhacay waxay ku fiican tahay dadkii lahaa inaad raadiso. adigu xoolaha xaraashka ah haddaad ogaata dad in laga soo dhacayna iska daa. haddii waxyaabahan kale noqdaanna waa la iibsan karaa. bilahi towfiiq. su-aasha ugu dambeysa wuxuu leeyahay saaxiibkan, adoo ganacsiga baa qof lacag kugu darsaday, lacagtii baa khasaartay, qofkii wax kugu darsaday haddii faa'iidadii iyo ra'simaalkii uu ku weydiisto maxaa la sameeya? alxamdulilah. طبعا ganacsiga haddii la galo waa faa'iido iyo khasaaro. hadday faa'iido timaado
faa'iida sidii loo heshiiyey baa loo kala qaadan. hadduu khasaaro yimaado ninkii xoolaha lahaana xooluhu khasaaraa, ninkii xoogga lahaana xoogu khasaaraa. hal mar buu qofkii xoolihii lagu leeyahay, waa haddii khasaaraha isaga uu sababay ama dayacaad uu ka timid isaga ay sababtay ama dacadtii xadgudub isaga ka yimid uu sababay. hadduu isagu sabab u ahaa khasaaraha iyo lumitaanka xoolaha waa lagu leeyahay xoolihii. saa darteed qofka ku sheeganayaay wuxuu u baahan yahay inuu soo caddeeyo qofkan isagaa dacati iyo dayacaad ka timid bay waxaan ku dhaceen. intaa hadduu caddeeyo xoolihii uu ku yeelan hadba qadarka ka yimid isaga. haddayna labadaa midna ahayn, qofku xoola laguma laha sidaa ku khasaaray oon dacatina ka ahayn dayacaadna isaga ka imanin. midna ganacsigeenna ku badan ka daaya. xooluhu ganacsi ma noqdaan hadduu rasamaalku garantii iyo damaanad leeyahay. hadday tahay waan faa'iideynaa mana khasaaro, lafahaagii mar walba waad leedahay, ninkaan lafihiisii unbuu leeyahay faa'iide ma leh, xoolihiisuna ma khasaaraan oo waa dayn. marba haddaad dhahda lafahaagu ma lumaan, xoolaha waa dayn iyo ammaano. marka hore ammaanay noqon, markay xoolahaaga galaanay isticmaashay xoolihii ku tasaruftana dayn bay isu bedeli. daynna dulsaar ma yeelato, lafuhuna ma khasaaraan. adiga haddii dayn aan kugu leeyahay oo guryuhu kaa wada gubtaan daynteedii waan kugu leeyahay. dayn hadday isu bedeshayna faa'iidaan rabaa, dulsaar maan rabaa waay. saa darteed dadka faa'iida doonka ogaada, xaquma lihidiin. hadduu heshiisku yahay lafahaygu ma lumaan, heshiisku saa hadduu noqdo xoolahagu waa dayn, ganacsi kuguma jiraan. haddaad lafahaagii inayna lumin rabto, ammaaniya dayn ka dhiga, akownka bankiga iska dhigo. haddii aad faa'iido rabtana khasaare u diyaargarow, waa inuu qofku khasaari karaa. wixii intaa ka badan soomaali baad tihiine laba arrimood ku dadaala. marka hore waxaad ku heshiinaysaan caddeeya, wax cad oo 1 iyo 2 iyo 3 ku heshiiye. marka labaad qoraal iyo diiwaan iyo caddayn markhaatila u yeela. ilahay soomali yaa ayuha alladhiina idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musamman faktubuuhu, war wax kala qorta. qof baa dhow beri maa soomaalida gartoodaan gallaa, may maalinkii saasaad tiri, may kuma dhihina saasay ahayd. war maxaad ku heshiiseen? waxaasaa ku heshiina, may kumanan heshiin, saa maahay. war waxaad kala qorateen awey maanaan qorin. marka horena si fudud bay isku aaminaan. waxaad adii qordhaada wuxuu ku leeyahay miyaday aamini laada, ima aaminaysa biya oo ku dhihi. marka dambana wixii af la iska yiri qaab mar baa la halmaami, mar baa kas la isugu inkiri, wax la tix raaco ma laha. saa darteed maantoo dhan xaaje hal fadhi ku dhammaan lahayd baa 10 fadhi qaadan. markaasaa meel hal caddayn u baahnayd baa 10 kitaab oo qur-aana la wada mari. marka hadhow aan kala baxayno iyo aan kala qoranno iyo inaan isqabsanin wey. isma aaminsanin maaha, aan wax kala qoranno hadhow iyo inaan isku xumaanin oo inaan isqabqabsanin wey. wixii dhaca, wixii aan kaga heshiino cad oo qoran aan haysanno, aan walaalo ahaan, iyo inaan isku xumaanin, iyo inaan isdirin, iyo inaan isdhicin, iyo inaan been isu sheegi weye. aan kala qorana nimayo soomaalida dadkii hala baro in la qoro. dadkiina shirkadaha xoolaha qabanaya, qoraalla xoolaha ku qabanaysaan diyaariya. qof kastoo wax idiin dhiibaya qordha. berri haddaad dhimato xoolihii dadka xaggee loo raacay? dii rabiba haddii kugu timaado xuquuqdii dadka aakhara ku saarayd see loo raacayo xataa lagaaga bixin. khayr allah idin siiye. qoraalka barta, wax kala qorta, wax markhaati u yeela, rikood u sameeya mucaamalada iyo maalka idin dhex maraya. bilahi towfiiq. يلا بسم الله. استاذ وراقي ما سوى قاري لك هل سؤال عفوا وهو يسافركم وحيلي الى اكونت اللي يرادوا ام شوي لكن العدد ده كل شديد ابارك دي وحيكوسوا كورنيا وحول انترست اكونت كان انا اسكا الى انترست كان يسوق قالوا اسكا
الحمد لله مسألة سفاريكم كم حرنا كريه بنقية على مدى waxaan ognahay lacagta laba sababoodba in meelo la dhiga waa loogu baahdaa ammaanada lacagta in meelaad ku aamini karto waxaa laga yaabaa lacagaha qadar markay gaadhaan guri kuma hayn karta xafiisna kuma hayn karta meelaad ku xafidaad u baahan tahay oo mar qaarkood aadan uga maarmin haddaad uga maarmi weydo way bannaanta sabab labaadna waa loo dhigaayo inay markaad u baahato aad isticmaalkeeda heli karto saa darteed baa hadda laynoo sameeyey markay Safaricom iyo xoogaysteen bangiyadana tartankii mobile banking bay noo sameeyeen haddii kale lacagta oo dhan ba xaggaas laga geysano anoo jidkaa socdaan lacagtaydi maamulan karaa masaasa intaad lacagta iga qaadi lahayd anna mobile banking baan samayno mobilkaad embesa ka isticmaalaysa kana ka isticmaal maxaa keenay waxaad u baahan tahay lacag ma qaadi kartid marar badanna waad u baahan inaad isticmaali karto iyadoo aamin kuu taalla haddana baahidaada aad ku fushan kartaa waa loo dhigaa hadday jirto haddaba baahi aad u dhigato waad dhigan kartaa akoonka ama bangi ha noqdo ama sharikad telefoonna ha noqoto ama safari dheh ama airtel dheh ama kuwo kaloo soo bixi doona dheh hadday interest soo gasho qadarka interestigeeda soo galay baad isdhaafin hana isla sugin intuu kugu badanayo hadday xooluhu yar bataan oo isgaargaaraan shaydaanka iyo naftu xoolo badan bixintooda ma sahlan intay yar tahay baa la isdhaafiya war maanta maxaa soo galay shilimaad baa soo galay jeebka gacanta geli oo mid miskiin oo meeshaa fadhiya iska sii uruur iyo mashruuc baad ku bixin doontaa haddaad dhahdo si yar iyadoo kuugu fakatay oo xaaraantii iyo ribadii kuu gashay baad arkay naf iyo shaydaan iyo xoolo badan markay yimaadaanna wax dhib badan wey saa darteed waa la dhigan karaa hadday baahi jirto ama ammaanadeeda ama isticmaal fudaydinteeda aad uga baahan tahay bilahi towfiiq